Hormud Cable TV وهيلك شعبك. dalka Sweden waa dal ka mid ah dalalka ugu qanisan dhinaca waqooyiga galbeedka qaaradda Yurub. dalkan waa dal ay malaayiin muhaajiriin ah oo ka kala yimid qaaradaha Afrika iyo Asia isugu yimaadeen, isla markaana ay badiba aaminsan yihiin in ay ka heli doonaan nololtoodii hore dhaanta. dalkani waa dal cimiladiisu ay ka duwan tahay cimilada Afrika, isla markaana u badan qabow xilliyada winterka amaba qaboobaha. haddaba xaaladda qaboobaha ee dalkani Sweden ayaa ahaan ku jira xilliyada qabowga, isla markaana maalmihii u dambeysay ahaa qabow oo barafkuna daadsan yahay laamiga, biyaha webiyaduna ay fadhiisteen. waxa alaaba la qabsan waaye dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkani Sweden. hase ahaatee 21 Maarsho ayaa la filayaa in qabowga uu ka dhalaalo gebi ahaanba qaaradda Yurub oo ay ka siman yihiin xagga cimilada dalkani Sweden. Farxaan Cabdi Xasan, Hormud Cable TV, Sweden.